دمعنا صحابي وايد السلام سلام كده قصة انه waxay qusaydaa qooley kagama sheekaynayo qooleydu qaabka ay ku dhalato iyo qaabka ay ku dhaqanto iyo qaabka ay ku noolaato dhammaan sidaan jeclahay waa wada taqaan qooleyda ukun ay ka bilaabataa ukuntaasna jijiila ka soo bax jijiilaas wuu weynaadaa waxaa jira marka tartamo qooleyda oo fara badan tartamadaas way fara badan yihiin qooleyda waxay leedahay sharciyo runtii waxaa jira dad ay balwadooda ay tahay oo iska dhaxla abka ab awowaa soo dhaqaalay jiray aabbiyaa dhaqaalaynaayo wiilkiyaa dhaqaalaynaayo dhammaan waa iska dhaxlaan laakiin ninkan la yidhaahdo jodri ayaa ugu dambayn qooleydan dhaxal ahaan u helay dalkaynu waxaa caadi ka ah qooleyda in tartan loo qabto sida tartamada Bangalore laga qabto kale maanta waxaan rabaa tartan Bangalore laga qabtay qisadiisa inaan idin soo bandhigo asxaabay qooleydan yar aad u jeedaan waxay astaan u tahay nabadda isdhexgalka wax walba oo nabad ah ayada ayaa laga bartaa waxaan ka heli karnaa casharro fara badan oo annaga naanfacay qooleyda waxaa laga yaabaa annagu bili aadniyo dad waaweyn labadan kalar ka waran sidee ku leeyihiin mise qalmaan aaday u kala duwan yihiin waxaad ogaataa familkana sidaas inay u kala duwan yihiin marka adiga qalbigaaga ha raacin haddii aad raacid meel xun ayuu ku geynayaa waxaa tahay adiga nin hanti leh gabar kuu qalanta oo qurux badana waad heli kartaa markay iska raadso calaa kulli xaal hawshan ku dirix waanad ku soo qabta asbuuc gudahooda war kale mar waya شودر قوليدا ما قادن كرا صاحبو انت دبت العقنا كسيناي اساسا دين waa u baahnaa qoleydan bidaayo horta habarteeda iska lahayd mar walba waxay dhigi jirtay ii kore marka tartankana uu qayb gashay rataa mana ku sii karo adigoo iga xumaaninin qoley kale waan ku raadiha habarteeda reeyad inaan u rumeeyo waay ha aadi aadeen u jeceshaa qoleydan saas haddii ay tahay mar walbaba hooyooyinkina guulaystaan waa waajib tin argagax inaad igu ridi kartaan maya inaan cabsi dareema iga sugina awooddeeda hadda ayay soo degtay ee rag qofkii ah horteeda soo istaago